السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي دمانتين أدي بعدين سلام يا كسر هذا channel كي عندنا شو هذا كان كل عصب تهاي وحنا كعسوسين أنا channel كان سبسكرايب ساعتها هذا كل فتيت فيديو كان لايك ساعتين أدي بعده ما حد هاي أنت أسكدي وحرب ما تينا هامبليه قدرة وفرحة الله قيب صدا أصحابتي الرير سومالي لان وأنا جو هامبليين يو استوديو كمان كمي مالين تدبلوا نقاشة xornimada Somaliland ama madaxbanaanida Somaliland waxaan rabaa insha Allah maanta inaan halka ku soo gudbiyo 11 dhacdo oo dunida hore uga soo dhacay isla maalintan 18 May 11 ka dhacdo waxa ugu horeeya 18 May ee sanadkii 2009 waxa soo gabagaboobay dagaal sokeeye oo ka soconayay dalka Sri Lanka kadib markii ay dawladda dalkaasi ay ka adkaatay oo jabisay jabhadii ka soo horjeeday magaceeda loo soo gaabin jiray LTTE 18 May ee sanadkii 1974 kiina dalka Hindiya waxa uu yeeshay quwadda nuclear-ka waxaanu isla maalintaas ka mid noqday ama noqday dalka lixaad ee haysta quwadda nuclear-ka 18 May ee sanadkii 1840 Napoleon Bonaparte wuxuu isu magacaabay inuu yahay imperatorka dalka Faransiiska 18 May ee sanadkii 1973 kiina waxa dhimatay gabadhii ugu horeysay ee ku biirtay Congress-ka Mareykanka 18 May ee sanadkii 1965 kiina waxa dunida macaasalaameeyay oo dhintay basaaskii ugu weynaa ee ay Yahuuddu ku dhex abuurato dalalka muslimiinta oo magaciisa loo oran jiray Eli Cohen 18 May ee sanadkii 1975 kiina waxa dhintay commanderkii ugu horeeyay ee ciidamada Rangerska Mareykanka 18 May ee sanadkii 1756 kiina dalka Britain ayaa ku dhawaaqay inuu dagaal la gali doono dalka Faransiiska 18 May ee sanadkii 2014 kiina muwaadiniinta dalka Switzerland waxay u codeeyeen in ayna ku shaqeyn doonin $25 saacadiiba macnaha lacag ka badan bay rabeen inay ku shaqeeyaan 18 May ee sanadkii 1703 ciidamada Dutch-ka ama ciidamada Holland iyo kuwa Britain oo wada socda ayaa qabsaday magaalada Cologne ee dalka Jarmalka 18 May ee 2018 kiina diyaarad laga leeyay dalka Mexico oo dul mareysay magaalada Havana ee caasimadda u ah dalka Cuba ayaa soo dhacday oo burburtay waxaana ku dhintay 110 qof oo kamid ahaa 113 qof oo diyaaradda saaran 18 May ee sanadkii 1848 kiina waxa kalfadhigoodii ugu horeeyay magaalada Frankfurt ku yeeshay golihii qaranka ee ugu horeeyay dalka Jarmalka sidoo kale waxa jira dalal u dabaaldegay 18 May isla markaasna fasaxyo gala xafladana qabsada tusaale ahaan Canada oo kale waxa looga dabaaldegaa maalinta 18 May Victoria Day maalin ay u yaqaanaan oo ay ku xusaan boqorad dalkan Canada soo xukumi jirtay sidoo kale dalka Turkmenistanna waxa looga dabaaldegaa maalinta 18 May maalin ay u yaqaanaan Constitution and Flag Day markaas halkaas ayaan ku dhamayn doonaa maanta videogeena aad baad ugu mahadsantahay hadda ilaa iyo halkan soo daawatay videoga sidoo kale insha Allah maanta waxaan rajeynayaa isla maanta waxaan rajeynayaa inaan soo sameyn doono vlog aan ka soo sameyn doono birta dheer ee Paris ama Eiffel Tower waxaan soo dhigi doonaa insha Allah markaas adigu ilaa 2 cisho kadib laga yaabo inaan soo dhigo si aad vloggaas aad u daawatid oo una ku dhaafin fadlan vloggan qoleelka YouTube-ka qableenka ina furata waxay ka caawinaysaa isla markaana videoga u soo geliyo inaan noqotid qofka ugu horeeya ee arka videogaas ee daawada inta ku kulmi doono video lamid ah waxaan kaga tagayaa sidaas iyo assalaamu calaykum والله كما سيستسامي كلام صلوا على